warbal maanta waxaynu sameeynaa saddex fanaaniin aynu fankaba ka saaraynaa shaqooyin fanka u dhaama aynu u diraynaa ilaahay bayna abuurta ku eegan karmayne ninka ugu horeeya waa qamar suugaani ilaa iyo maalintan ku baranay waxaan kala garan weynay inaad caadi tahay iyo inaad fiyo yahay ilaa iyo maalintan soo shacbaxday ilaahay cirkiisa ka dhamaan lahaa maxaa laga siiyaa mid ku haysta ilaahay cirkiisa wareesaha waxay u dhageysan kari weynay dambi shalay ugu dambeysay waxa tiriya ay gaarsiiyay cirka haddaba anaga ku gaarsiinna way ka firsan weydii gabigaaga waxaan ku saaraynaa xabada iyo wax gamceeda labada dhagood uu soo wayso ku tag baladaba aan ku aragna cirkee dumarkii aad sheegi jirtay magacooda ku soo qoray marka naftu u yaabtana waxa weeye sida barafka soo dhac annaga waan ugu tiri waxa weeye dayaxan kan Kenya waxa weeye cirka magacaagan ku qoray haddana waxaan ka baqay inuu hilaa ingrees fanka ka baxo iyo dayax gamceedkaas aan ku saaraynaa soo diyaar garow annaga dambiga nidilsaybe warninka labaad waxa weeye xariir axmed adigu waxa weeye fanaan baa tahay Soomaalidaad badinaysa adiga dhibaatadaada waxa weeye bishii walba waxaad gashaa bisha malabka gashaa waad guursataa haddaba sida ay kugu fududaato guurku gabigaaga waxaan ku furaynaa dugsi quraan halka ka baadi doon lahayd dumarka ama telefoon ka wiciyaa xaaja oran lahaydba iyaga uu dhex fadhiiso dugsi quraanka hal shaqada roosi kartaana halkaas ka ballaminaysa khadiija bisha soo socota waa qalgalkeena gurigeena waxa inooga sii hayay xaaji adiga khayr baa kugu jira waaba dhib yaraanba saddexda sheegaysa labad sheegaysa halka ka aroos aadna waa ku salaamaya waxa weeye talada qaado warninka saddexaad waa ilka cas ilaa iyo maalintan ku baranay karbaash baan nafta naga saartay ciidad karbaashtaan ma naqaan hadda ma garanaysaa heer waxaan maraynaa dhalinyartii markay xaafadahooda isqabtaan ay heesahaagii xaafadahooda u isticmaalaan hadda ma naqanaysaa buufi cayaanka badaliida kuwa iigu baaqay haddaba gebigaaga waa ilka cas ka waran baasuuka ku dhawaaqay gebigaaga waa tuuta booliska ku xidhayna haddaba ma maqlaysaa qori dhashiikaana waa ku dhiibayna meeshii aan maalintii ruuto badan isku haysana Kenya qolada difaacaysa ka mid noqonaysaaba afkaaga kala haysan weeyii waxa weeye halkaas aad ka dagaalamaysaaba ama dhashiikaha control ama xabada waxa weeye halkeeda ku qabo gebigaaga waa askari baan ka dhignaa Soomaaliya oo boqorka shanta Soomaaliyeed baa waa inaad dalkaaga u dhimataa mid kale waxa tahay askariga kaliya ee heesada baata marka nafta u yaabta ama aad baqdada ilayka asaata waan ku aqaan afkaas umad ka nooshahay marka nafta u yaabto heesaha umad sidanaysa buufi cayaanka ma maqlaysaa badaliido gabigaaga baad digana baasuuka ku dhawaaqay ilgaas soo diyaar garow ciidanka wadankaad ka mid noqonaysa oo anaga nafta noo keentaybe naftiirad baan naga siitay badaliido kuwa iigu baaqay waraad ku salaamay ilgaas fanka dhaaf waxa weeye wadanka u dagaalan waa baartoogiyo bal saddex fanaaniin oo kala fanka ka qabanayna ilaahay bayna dilay ku eegan karmayne ninka ugu horeeya waa kuma waxa wala awalo ninka meelan hay'ad saday nafsiga yarida gurka soo Soomaaliya haddaba adiga aan hoorsaday aaladiga inaan fanka ka qaban ilaa ku 900 Soomaali heesi fanka wad ka qaan gaadhay waqtigaaga waa dhamaaday fanaaniinta maanta ku jirta wad kaga wada horeysay xilligaaga waa dhamaaday awalo xabad gaariyo fi ayran ku saarayna khumuraan ka dhigaynaa Soomaali sida iskugu soo dhawaadin lahayd isku jeclaan lahayd ay raadinaysaa ilaa yawm qiyaamaha haday doontaa ku qaatay waa inaad socotaa gaarigaaga shidaalkiisa wixiisa anaga ku gaarna shaqadaada hayba ku jirta khumuraan ka dhigayna waa inaad keentaa aqliga Soomaali ku midoobi lahayd sanadkiisa inaan jawaab kugu nimaano fanka dhaaf shaqadaada ku toos waryaade ninka ku xiga waxa weeye Cabdikariin Cali Shaah nin cid macaan baa tahay codkii la xambad ku darsatay markaan xirfadaada xaqan ka fiirnay gabigaaga waxaan ogaanay bahasha safety la yiraahdo inaad isku fiicantii labadaba waa ku qabsan taqaana wariya adigoo saa ugu dagaalamaya arkay ma garanaysa codkiina wadaysa gabigaaga waa wariya waxaan ku oranaynaa masaajid baan ku geynaa saddex quraanka aad xafidaysa Falastiin baan ku hadjinaa Cabdikariin adiga labadaada sayfoon هذا ما مغلسة الله بدو ما كنت قال جهاد في سبيل الله يبغى بحث عن تكرينه شقاء هذا هندو كتشتا فنك الداف تيوحوي يوم مع السلامة الله بدو وريا جاي كيف بيلي أنا وأبو سلام يشقى ذا كتوس ورياله نيجي كل واضح ده نورش أبورك مقدسه ضي حد وحوي فنك يحكوا درس قروح يحكوا درس طبعا كبوي يحكوا تيكس ناشياش اللي سقعد صومه markan xirfadiisa isaga baadi doonay waxaan soo ogaanayba inuu quruxda ragga Soomaaliyeed caalamka la tartamayo hadda ma maqlaysaa isagana waa weydiiyay dayaxo shaqada waad ku toostay waan ku leenahay
quruxdaad nooga qayb galaysaa ragga Soomaaliyeed baad u tartamaysaa hadhow caalamkaad ka tartamaysaa ma haddaad soo qaadi weydo qurux intaad noo tartanto laga badiyo walla iyo bilayna la iska yeerin gooba meeshaad ku noqonaysa inaad farxiyo dimaashadeen inay ka celinayna hadda ma maqlaysaa waa talabaad heer kale ku furayna shoppingka garanaysaa dimaashadeen baad u dhiibanaysaa farxiyad u dhiibanaysaa xaaskaaga u dhiibanaysaa lamaanihii ku yimaadee ka codsada dhaashiyaashaad isku cadaysay dayaxo waxana quruxa ka soo saaray ilaahaga hadaad taqaan haw qorinta cambaarta iyo tafiranka haw qorin dayaxo yaan la isku wanjalin yaan la isku ciyaarin dawooyinka saxda ah u qor waxa jira lamaanooyin ka cabanaya ragga doonaya inay cadeeyaan rag baa jeex u dayanaya raggaas markii meheradaada yimaadaan ee ay dhaashiyaasha isku cadaysay ka codsadaan tafiranka iyo cambaarta ka ilaali xaasha wujud ma maqlaysaa aadna waa ku salaamaya waxa uu tartamaysaa quruxda ragga Soomaaliyeed